munaasabadan oo noqon doonta mid si joogto ah looga xusi doono deegaanka Streatham ayaa waxaa ka soo qayb galay wafuud ka kala timid deegaano kala gedisan ee dalka UK. haddaba sanadkan waxaa tartan ciyaaraha kubadda cagta ku dhaxmartay ciyaartooy Soomaaliyeed oo ka kala yimid deegaanadaas. tournamentigan waa Somali Youth Tournament oo aan ugu tala galnay maalinta dhalinyarada adduunka 15 May. waxaan maanta ka soo qayb galnay annagoo ka socno North West gaar ahaan magaalada Liverpool. waana arin aad iyo aad loogu farxo qabanqaabiyaasha oo ah Muqdisho FC uu gudoomiye u yahay Ciidrus. maanta waxaan joognaa furitaanka ciyaaraha South West London. maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan joogo tartan lagu qabanayay dhinacaas iyo Southka ciyaaro badan wadamo badan ay ka yimideen oo ay meeshan ugu qabteen dhalinyarada degan Streatham. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guddiga qabanqaabada iyo dhammaan laacibiinta ka kala yimid wadamada Yurub. magacaygu waxaa la lahaa Ibrahim Maxamed waxaan ka soconaa kooxda North London. geemka koowaad aan ciyaarnay waxaan ku badanay 3 eber anigoo ah Mustafa Saleebaan Darwiish kana socda xaafadda South Hall kooxda ka timi. magacaygu waa Xamuud Ibrahim waxaan ahay odayadii hore ee sportiga Jamhuuriyadda Djibouti. maanta dhalinyaro ayaa halkan nagu soo casuuntay marka dhalinyarada cuslaatay ayaa loo sameeyay competition-kan marka kooxda Djibouti ayaa halkani aan anigu ka ahay aabo. waxaan ka socdaa kooxdii Old Boys Sweden. maanta waa maalintii dhalinyarada waxaan rajaynaynaa guul weyn oo rajaynaa dhalinyarada. waxaan nahay xaafadda Zim Daawud. geemka labaad hadda soo dheelnay hal geemna waa reynay geemna waana la ka badiyay anigoo ku hadlaya magaca ciyaartooyda Muqdisho Star magaca ciyaartooyda Streatham magaca sportska bahweynta sportska oo All Streatham waxaan ciyaarnay anoo ku hadlay kooxdeena 2 geem soo far hal geem waan badinay tii kale tan uu socdaa barajaan galnay. waxaa aad iyo aad u mahadsan yihiin reer Streatham oo anagana ka imaani reer Manchester oo aad iyo aad na soo dhaweeyeen. galab wanaagsan galabta waxaan u nimid halka kan ciyaaraha 15 May maalintii dhalinyarada SYL inaan ugu dabaaldegno. farxadowna ay tahay inaan kala qayb galo ciyaarahan maalinta 15 May lagu maamusayo ay dhigayaan dhalinyaradii hore ee Red Streatham. galabta waxaan aad ugu faraxsanahay maamuska loo sameeyo 15 May maanta dhalinyarada annagoo ka kala nimid wadamo badan sida Scandinavian Sweden iyo Denmark. aad baan islaamina barnaamijka wanaagsan oo soo qaban qaabiyay Streatham oo first time aniga ka soo qayb galo. waa ku faraxsanahay hawsha ay qabteen rag isku soo abaabulay gaar ahaan Streatham. annagoo matalan jaaliyadda Great Manchester waxaan u maleynayaa inaan ku faraxsanahay ku soo bixitaanka aan ku soo baxno finalka. halka waxaa iskugu yimaadeen lajanadii hore ee dadka ciyaartooydii hore ciyaartooyda cuslaatay ee barisamaadkii. barnaamijka waxaa loogu talagalay 15 May loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed inay isku bartaan. waxaan kaloo rabnaa meeshan waxyaalihii daaqda ka geystay xawaaladaha oo u horeyso xawaalada Dahabshiil oo runtii ka qaadatay kaalin fiican. يعني kooxdii soo abaabushay aniga casuumadda noogu fidisay oo reer Streatham yani anoona kala tilmaamin guud ahaan ayagana waxaan leeyahay hambaliyo oo u hambaliyanayaa. waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo dhammaan bahweynta sportiga xaafadda South West London. halkan waxaan uga mahad celinayaa reer Streatham gogasha ay noo fidiyeen ayna xasuusiyeen 15 May. ugu dambeyntiina waxaa la gudoonsiiyay abaalmarino kala gedisan ciyaartooydii iyo shakhsiyaad caan ku ah ciyaaraha kala gedisan.